Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku qabsoomay caasimadda dowladda Galmudug ee Dhuusamareeb 26 iyo 27 Agoosto 2023. Golaha wada tashiga qaran ayaa kulankoodii toddobaad diiradda ku saaray ajandayaasha soo socda. Dhamaystirka howlgallada dib u xoreynta deegaanada kooban ee weli ku harsan gacanta cadowga iyo dardargelinta wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah khawaarijta. Xasilinta deegaanada laga xoreeyay khawaarijta iyo deegaanada lagu xoreyn doono howlgallada wajiga labaad. Dib u heshiisiinta bulshada ku nool deegaanada laga xoreeyay khawaarijta. Bogaadin. Golaha wada tashiga qaran waxa uu bogaadinayaa guulaha waaweyn ee ciidamada qalabka sida oo kaashanaya shacabka deegaanada ay ka gaareen dagaaladii u dambeeyay ee khawaarijta looga xoreeyay deegaano badan oo muhiim ah oo dhaca gobolka Galgaduud ee dowladda Galmudug. Golaha wuxuu si weyn u bogaadinayaa kaalinta abaabul iyo hogaamineed ee madaxweynaha qaranka, xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, dowladaha xubnaha ka ah dowladda Federaalka Soomaaliya iyo xildhibaanada labada heer ee lagu ciribtirayo khawaarijta. Si gaar ah, golaha wuxuu bogaadinayaa kaalinta madaxda iyo mas'uuliyiinta dowladda Galmudug iyo shacabkeeda ka qaateen dhiirigelinta iyo gacansiinta ciidamada qalabka sida ee ku howlan baacsiga iyo ciribtirka khawaarijta. Qodobada shirka ka soo baxay. Golaha wada tashiga qaran ayaa falanqeyn dheer kadib ku heshiiyay qodobada hoos ku xusan. Golaha wuxuu adkeenayaa in dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah iyo shacabka Soomaaliyeed ay si wadajir ah oo isku tashi leh u xaqiijiyaan amniga una xajistaan deegaanada la xoreeyay. Golaha wuxuu isku raacay in howlgallada la waafajiyo istiraatiijiyadda qaran ee la dagaalanka khawaarijta la iskuna dubarido dadaallada kala duwan ee hay'adaha dalka. Golaha wuxuu adkeenayaa in dalku uu ku jiro xaalad dagaal ayna waajib tahay inaan loo kala harin dadaallada dib u xoreynta dalka. Golaha wuxuu go'aamiyay in la mideeyo qorshaha iyo hoggaanka howlgallada lagu ciribtirayo khawaarijta lana ballaariyo howlgallada dib u xoreynta. Xasilinta deegaanada laga xoreeyay khawaarijta. Golaha wuxuu adkeenayaa ahmiyadda ay leedahay hanashada guulaha qiimaha weyn ugu fadhiya ummadda Soomaaliyeed ee laga gaaray dagaalka lagula jiro khawaarijta. Golaha wuxuu farayaa hay'adaha heerarka kala duwan ee dowladda inay mideeyaan qorshayaasha, mashaariicda iyo adeegyada bulshada ee ay sida degdegta ah ugu baahan yihiin deegaanada laga xoreeyay khawaarijta, sida maamul u samaynta, amniga, caafimaadka, cadaaladda iyo waxbarashada. Golaha wuxuu ka codsanayaa ganacsatada, hantilayda Soomaaliyeed iyo kuwa khayrka jecel inay ka qayb qaataan dadaallada dib u kabashada deegaanada la xoreeyay. Golaha wuxuu ka codsanayaa saaxiibada caalamka ee Soomaaliya inay kaalmo wax ku ool ah ka geystaan deegaanada laga xoreeyay khawaarijta si waafaqsan qorshaha xasilinta dowladda. U diyaargarowga wajiga labaad ee howlgallada. Golaha wuxuu isla qaatay in si wadajir ah loo dardargeliyo diyaargarowga dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay ugu jiraan wajiga labaad ee dagaalka lagu xoreynayo deegaanada wali ku jira gacanta khawaarijta ee Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, galbeedka Webi Shabeelle. Golaha wuxuu ku boorinayaa dhalinyarada iyo horjoogayaasha khawaarijta inay isku soo dhiibaan dowladda iyagoo ka faa'iideysanaya fursadda xeerka cafiska kana tala sunaan fikirka xagjirnimada. Dib u heshiisiin iyo nabadeyn bulsho. Golaha wuxuu go'aamiyay in diyaargarowga dib u heshiisiinta shacabka Soomaaliyeed si colaadaha ay khawaarijta dhex dhigeen xal waara looga gaaro. Golaha wuxuu farayaa hay'adaha heerarka kala duwan ee dowladda inay dardargeliyaan fulinta istiraatiijiyadda iyo qorshaha qaran ee dib u heshiisiinta, nabadeynta bulshada iyo ciribtirka xagjirnimada. Qodobo kale. Golaha wuxuu adkeenayaa midnimada iyo wadajirka dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Golaha wuxuu si weyn uga walaacsan yahay colaadda ka taagan Sool, wuxuuna ugu baaqayaa labada dhinac inay isxakameeyaan kana fogaadaan tallaabooyin sii dheereyn kara colaadda. Golaha wuxuu ugu baaqayaa labada dhinacba inay ilaaliyaan xuquuqda maxaabiista. Golaha wuxuu sidoo kale ku baaqayaa in si degdeg ah loogu gurmado dadka ku barakacay dagaalada Sool. Mahadcelin. Golaha wuxuu mahadcelin ballaaran u jeedinayaa dowladda iyo shacabka Galmudug oo si buuxda u martigeliyay shirka toddobaad ee wada tashiga qaran. Dhammaad.